howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS wuxuu si rasmi ah ugu wareejiyay ciidamada Soomaaliyeed 6 saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada ADMIS isagoo fulinaya wajiga koowaad ee dhimista ciidamada ADMIS. ADMIS has successfully implemented the drawdown of 2,000 troops. Toddobaadkan waxaan barnaamijka Tabantaabo kaga hadlaynaa wararka la xiriira wareejinta saldhigyada iyo sida ay uga go'an tahay midowga Afrika inuu ku wareejiyo mas'uuliyadda amniga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. nagu soo biir Jimcaha 28 Juulaay ama Axadda 30 Juulaay adoo dhageysanaya ama daawanaya idaacadaha iyo telefishinada hoos ku xusan. sidoo kale waxaad barnaamijkan ka heli kartaa barta YouTube-ka ADMIS.